kulanti waxaan horeysan daawadayaal halkani waa Rugta TV oo idin alaabo kala socotaan wararka warbixinooyinka iyo waxyaabaha dunida dacaladeeda ka dhacaya. daawadayaal ku soo dhawaada Rugta TV haddii aad channelka ku cusub tihiin ay tahay mid boqoshadaada koobaad fadlan channelka subscribe saar fiidiyoyadana like saar muuqaaladana si share gare. daawadayaal ku soo dhawaada bandhiga Rugta TV maanta waxaan idin qaada dhigi doonaa fanaanada Ugbad Ragsan iyo saygeeda cusub ee Ilyas Idris oo haatan muddo week laga joogo ku aqalgalay magaalada Hargeysa iyagoo ay muuqaalo yar oo kooban iskaga soo duubeen bartooda Instagram-kana ay soo dhigeen ayaa ay ku caabinayeen fanaanka Qamar Suugaani iyadoo ay halkaas ugu soo jeedinayso iimo iyo dhaga hadal. sadla socotaan baryahan ugu dambeysay waxa social media haysata Ugbad Maxamed Cabdi Ugbad Ragsan iyo Qamar Suugaani oo isfuray balse daawadayaal dadku waxay aad ugu mashquuleen isfurkooda iyo sababta yar ay isku fureen oo ahayd in uu Qamar Suugaani cod laga duubay codkaas oo ahaa gabadh oo ureeyay balse gabadhu ay been abuur ku sameynayso gabadhaas dad badan hadba loo sifeynayay oo social media waxyaabaha ku jira ay kamid ahayd Kolera Wasmalofa ayaa ka dambeysay oo codka soo dhoodhoobtay si ay isku dirto labadan lamaane mar la yiraahdo Hodan Cabdiraxmaan ayaa campaign-ka kula jirtay isku dirka labada fanaan balse daawadayaal xaqiiqada alla ayay naga og anagu ma sheegi karno. waxay soo saareen muuqaal Ilyas Idris iyo Ugbad Ragsan maanta oo chess ahaa title-ka waxay ku dhigeen in chess adigu waxay qorar saasa Instagram-ka oo gali kartaan oo soo fiirin kartaan Instagram-keeda dawdada su'aasha suudiinta leh ayaa wada waxay tahay Ugbad Ragsan talow sida Qamar Suugaani ay u soo gaarsiisay heerka Ilyas Idris. runtii anigu Ilyas Idris waxaan bartay iminka hadalhaynta Ugbad Ragsan iyo Qamar Suugaani ayaan magaciisa bartay balse talow kor ma qaadi doontaa samcadiisa iyo sharaftiisa sidii Qamar Suugaani oo kale. wewe تداي عند دقة قلب الولاء حبيبي والله شيء ممكن حس والله أنبوان كنت لكن waxaan ku faraxsanaynaa kula joogo سيدا كلام مشي inaa la سيدا cajiib oo dareemi kartaa runtii lama lamaane oo aad isku faraxsan ay ahaayeen balse daawadayaal waxa kala taga iyo khilaafka keenay waa la garan karaa waana la dareemi karaa inuu yahay Qamar Suugaani isagoo oo halka keenay arin aan isu soo laabasho lahayn. waxaan jeclaysan lahaa muuqaalka labaad ee uu la duubay gabadhana inaan idin tuso inuu ninkani 10 naagood leh oo yahay bal muuqaalka labaadna daawada waa Nasiim Sooraan iyo Qamar Suugaani. watahay daawadayaal waa dareemi kartaa gabadh hinaastay oo ka hinaastay wax aan macquul ahayn oo lagu sameeyay halkuu ka soo sameyn lahaa ama uu ka soo ceshan lahaa inuu isagina la guriyo oo wado mid ka daran. runtii waa dhibaato aad iyo aad u weyn waa la dareemi karaa laba qof oo isjecel xidhiidhka ka dhexeeya balse isagu ma uu dareemin waxa uu doonayay sabab ay ku kala tagaan Ugbad Ragsan iyo isagu sababtiina marka uu helay arrinka xaggu u waday ayay u dhacday oo gabadh lacag leh ayuu helay balse daawadayaal mu dareemin gabadha heerka maanta uu taagan yahay soo gaarsiisay inuu Ugbad Ragsan tahay oo maanta halkuu taagnaa ay ka soo qaaday oo ay keentay maanta halka uu taagan yahay. runtii cajiib oo dareemi kartaa qof maanta halkuu taagnaa laga soo qaaday oo la keenay halka uu heerka uu taagan yahay maanta. runtii heerka uu taagan yahay maanta fanka uu ka taagan yahay waa kan bilaajid waa dhameystiran yahay in isaga waxa uu la tartami karaa fanaaniinta haatan jooga ee heerka fanka meelaha wanaagsan ka taagan isagoo low wave halka ka soo qaatay maanta heerka ay gaadhisay balse wiilaaw isagu. daawadayaal saad la socotaan halkani waa Rugta TV oo idin alaabo kala socotaan wararka warbixinooyinka iyo waxyaabaha dunida dacaladeeda ka dhacaya. haddaba ha hilmaamina subscribe iyo like iyo comment iyo share. waxaan jeclaysan lahaa daawadayaal inaan muuqaalka intaa ku soo koobno haddii channelka aad ku cusub tahay ay tahay boqoshadaada koobaad fadlan channelka subscribe saar fiidiyoyadana like saar muuqaaladana sii share gare oo la wadaaga asxaabtaada. aad baan idin salaaminaa meel la joogtaan waa muuqaalkan noo xiga iyo see your next video insha Allah taala.